haddaba dhamacyo ku gelin. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabteyda qaaliga ee ku xiran janaalkeena Ayuush bintu Rashiid, waxaan hawada idiin soo marinayaa salaan qiimo badan. marka xigta waxaan idiin wadaa maanta qiso jacayl oo murugo badan, dhafoor iyo dhawan heesi badan. qisadan waxay ku dhacday gabar Soomaaliyeed. fadlan intaan qisadan guda gelin waxaan idinka codsanayaa in aad janaalkan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saarto, haddii aad hore noola joogtana laagta iyo sheerka iyo commentiga ha ka iloobin. waana mahadsantihiin dhammaantiin. akhristayaasha ku tixan warbaahinta caalamiga ah ee Gada Times ayaa jeclaan lahaayeen inaan la wadaagno qiso ay soo dirtay gabar Soomaaliyeed, taasi oo magaceeda ku soo koobtay Anisa, iyadoo ku dhacday qiso jacayl oo xanuun badan ay soo martay inooga sheekeynaysa. Anisa ayaa email ugu soo dirtay mid ka mid ah wariyeyaasha ka tirsan Gada Times oo isla markaa ay is yaqaaneen, iyadoo maamulka sare ee Gada Times ka codsatay in qormadan ay la wadaagaan baraha bulshada maadaama ay tahay qiso jacayl oo xanuun badan oo iyada qabsatay. qisadan waxay ku bilaabanaysaa sida tan: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan halkan salaan qiimo iyo wanaag badan u marinayaa maamulka iyo shaqaalaha shabakada Gada Times iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed, khaasatan inta qisadeedan akhrisatay. aniga da'deyda waa 21 jir, waxaan ku noolahay magaalada Boorama, waxaana weli ahay ardayad dhigata jaamacad. qiso igu dhacday welina qalbigayga danqiso, maskaxdeydana kasii guuxaysa ayaan go'aansaday inaan la wadaago bulshada si ugu yaraan dhibaatada aan dareemayo igaga yaraato. waxaan in muddaha isgaranaynay wiil oo aanan jeclaysan magaciisa inaan halkan ku soo qoro. waxaan ahaynay jecel wadaag, laakiinse xaqiiqada markaan ka hadlo aniga aad baan u jeclaa, isaga dhankiisana Allah ayaa garanaya. dad badan ayaa xitaa la yaabeen heerka uu gaarsiisan yahay jaceylka aan u qabo. noloshaydu waxay ahayd mid aad iyo aad ugu faraxsan marka aan la joogo ama aan maqlayo. aniga waxa ay dhalay ganacsatada ugu magac weyn magaalada Boorama ama guud ahaan deegaanada Somaliland. waxaan ogaaday wiilka aan jeclaa in uusan igu soo raacin jecel, laakiinse hantida waalidkay uu daneynayay oo keliya. wax kasta oo uu magaalada ka jeclaado waa sii jiray, haddana isaga ma uusan ahayn qof dhaqaalahaya ama reerkiisu ay hayaan. maadaama ay nafteeda jecleedna wax walba oo awoodeyda iyo karaankeyga kama aanan hagra jirin. aniga oo taa eegaya, noloshana meeshaas ka fiirinaya, ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in uu ninkii isbedelay. waxa uu la saaxiibay inan kale oo dhaqaale haysata oo weliba iyada ganacsata ah. waxa ayna la socotay inaan anigu inankan xiriir wadaagnahay. waxa ayna fartay in uu iga haro. yar baaqsaday sharcigii balloo maray, saaxiib haboodine caashaqi bartiisii iyo meel kasii badan. galab khamiis ah oo aan balansaneynay ayuu iigu yimid xaafadda oo iina sheegay in uu wax jacayl ah ii qabin, uuna doonaynin in uu mar dambe i arko. aad baan u qaraacmay, waxaan dareemay dhibaato soo wajahday qalbigayga, waan ciishooday. wallaahi ku dhawaad bil waxaan ahaa bukaan socod. dadaal badan waa bixiyay, qaar ka mid ah asxaabteyda iyo weliba qaar ka mid ah ehelkaygii baan u diray. waxa uuna u sheegay in uusan i jeclayn, uu ahaa keliya jaaniskaad ama qarash raadis, helayna mid aniga iga wanaagsan.
maalin hadda laga joogo 7 bilood xaqiiqdii aad baan u gubtaa waxaan sameeyana garan waaye balse inan aynu saaxiib nahay baa igu tiri waa intaasoo ay wax ka degaane la wadaag bulshada Soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa walaalahay wixii talo iyo tusaale iyo fikir aad igu caawinaysaan inaad ii soo gudbisaan mahadsanidin intaasi ayay Aniso sheekadii inoogu soo gabagabeysay daawadayaal ama dhageystayaal haddii aad wax fikrada ku darsanayso walaasha waad ku caawin kartaa wixii talo ahna commentigadan mid la mid intaan isugu imaan doono waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkan ii share gareysaan asxaabteeda la gareysaan subscribe saartaan channelkan ha socoto inta qisadan mid la mid aan ku kulmi doonana waxaan iga tagayaa sida iyo amaana Allah Socheko waro kusafada inoloshe Wani sayato kasi hawaya wadaursaniya gogoe Erkasare uego Socheko waro kusafada inoloshe Illa lagu su'alo kusego wahiru waan kula socday kuma samaxayo jiro suur dhawaaqdo sekadaga gaadhay ila lagu su'aalo kusego waaqiro waan kula socday kuma samaxayo jiro suur dhawaaqdo sekadaga gaadhay سمير وقترنا أما أوسد نقلنا مدة كادر سوغي أدو سمير وقترنا أما أوسد نقلنا مدة كادر سوغي الله صاحاني بحري لما سيرنا يومرين أما سيري وحدي أما سيدا يقادو الله صاحاني بحري lama sirna igu marin ama sayri wacdi ama sida igu qaado Taydiyo gato haka masarne sanadka bawahanay jacaylku saratagay seeda jirkiise ina ku silonay taydiyo gato haka masarne sanadka bawahanay jacaylku saratagay seeda jirkiise sababadai qalano wadai sarano diga sayrinaye naqsa qayba sida tay talaman sabalaynayaye sababadai qalano wadai sarano diga sayrinaye naqsa qayba sida tay talaman sabalaynayaye hadu samir waxtarida ama uusad noqolaa muddanka dhursugaye hadu samir waxtarida ama uusad noqolaa muddanka dhursugaye adoo saacanigu xirin lama sayrna igu marin ama sayri wacdi ama sida igu qaado adoo saacanigu xirin